kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka Mawlada Dhallaanka oo ka daawataan marka soo booqataan channeladaanu ku leenahay YouTube iyo Facebook ee Dhallaan Koriye toddobaadba sheeko cusub ayaa ku maqashaan sheekada toddobaadkan idinku haynana waxay qaybteedii labaad tahay taxanaha sheekooyinka Jamaal waa wiil dhalinyaro oo ka haajiray kana tagay nolosha iyo deegaanadu ku noolaan jiray ka gadaal markii waqtiga iyo waayuhu isbedeleen waalidkii oo ahaa xoolo dhaqato buuraleyda Golis ku nool ayaa u soo diray magaalada Berbera si uu noloshiisa iyo mustaqbalkiisaba wax uga bedelo balse haddii aad daawatay qaybtii hore sheekada waxaad og tahay in Jamaal markii uu magaalada Berbera yimi uu garan waayay meel wax ka bilaabo waxa uu bartanka u soo galay magaalo uusan ehel iyo asxaabtoona ku lahayn ugu dambeynta sheekadiisa qaybtii horena waxa uu weydiiyay 3 su'aalood oo ahaa halkii wax ka bilaabo hooy cunno iyo shaqo kuwa badan oo idin kamid ayaa la soo taliyay balse talooyinka intooda badan waxay ahaayeen inuu shaqo raadsado dadkana caawimaad weydiisto waa midaas miduu wax ka bilaabay balse marka horeba ma aqoon meel uu shaqo tago iyo goob uu shaqo ka helo isagoo kolba dhan isaga soconaya ayaa waxa uu ku soo baxay xarun lagu burburiyo dhagaxa guryaha lagu dhiso shaqo muruq iyo awood badan u baahan oo wiil dhalinyaro oo 13 jir uusan qaban karin wuu isku dayay balse kuma guuleysan markii dambana isagoo murugaysan ayuu wadooyinka waaweyn ee magaalada ku hareeraysan mid badhan u qaaday waddo kale ayay u dhiibaysay uuna iska soconayay ma oga meesha uu socdo balse waxa maskaxdiisa iyo madaxiisa ka dhex guuxaya siduu noloshiisa ku maareyn lahaa dabcan shaqo ayuu raadinayaa balse meel uu doono iyo meel uu ka bilaabo midna garan maayo isagoo kolba dhan isaga socda wadooyinka waaweyn ee magaalada Berbera ku wareegsan markii dambena waxa uu ku soo baxay xeebta iyo badda weyn ee magaalada Berbera ku hareeraysan weligii bad ma arag maanta ka hor uu samaqlay cabsi iyo argagax ayaa ku abuurmay balse waxa xaaladiisu isbedeshay markuu ku soo baxay dhalinyaro iyo dadka deegaanka oo xeebaha badda ku hareeraysan nadiifinaya si wada jira si qashinka uga tiraan una qurxiyaan xeebaha waxaana ka baxday cabsidii uu ka qabay badda wuuna isdhex taagay muddana wuu iska daawaday badda iyo shaqada hareeraheeda ka socotaba markii ugu dambeysana waxa soo galay dukaan uu hadda rabo lacagtii ugu dambeysay uu haystay in wax kaga iibsado wiil dhalinyaro oo da'diisa oo kala ayuu kula kulmay waayihiisa ayuu u sheegay wiilka dhalinyaradana waxa uu ku yiri amba sidaada oo kale ayaan maalin maalmaha kamid Berbera soo galay oo magaalo soo dhaweysa qof kasta oo soo gala waan hubaa inaad shaqo helayso waxaanse kugula talinayaa in dhammaan goobihii shaqo kaaga muuqato dukaan suuq iyo muqaaxi midnaba aanad dhaafin waad shaqo weydiisato talada wiilkan dhalinyarada ay isleeyihiin bu'aad Jamaal ugu farxay wuxuuna markiiba ogaaday halka uu shaqo ka bilaabi karo iyo nooca shaqo looga raadsado magaalo weyn uusan weligii arag waxa heltalaad u anfacday markuu talada helay ka gadaalna isla markiiba waxa uu tagay suuqa weyn ee dharka cunooyinka iyo alaabo kala duwan lagu iibiyo wuxuuna bilaabay inuu shaqo weydiisto kama helin shaqo balse hadda waxa uu yahay nooca shaqooyinka loo raadsado isaga oo ku jira raadinta shaqada iyo dadaalka uu doonayay inuu noloshiisa ku maareeyo wuxuu si lama filaan ula kulmay hooyadii uu caawiyay wiilkeeda dabcan haddii aad sheekada qaybteeda hore daawatay waad xasuusan waxa uu la kulmay hooyadii wiilkeeda caawiyay waxay soo fadhiisay muqaaxi laga qaxweeyo cunno ayay u gaday kadibna waayihiisa ayuu mar kale u sheegay iyana waxay uga warantay sida uu shaqo ku heli karayo waxay siisay talo iyo tusaalooyin noloshiisa anfacay waxay sidoo kale u sheegtay sida wiil dhalinyaro oo sida Jamaal oo kala ehel iyo asxaabtoona ku lahayn magaalada uu soo galay uu magaalada ugu noolaan karo waxay u tilmaantay xafiisyo dadka shaqo geeya iyo goobo laga raadsado guryo kira waxa uu helay talo aad uga anfacay abaalkii
dagaalkii uu galay iyo badbaadadii wiilkeeda badbaadshay ayay iyaduna hadda caawisay. isla markiiba Jamaal waxa uu tagay xafiis dadka laga shaqaalaysiiyo. waxa uu markiiba helay shaqadii ugu horeysay ee uu bilaabo, wuxuuna saxeexay heshiis. waxa uu shaqada ka bilaabaya dekada caanka ee magaalada Berbera ku taala. maalintii ugu horeysay ee shaqadiisa ayaa maanta la gaadhay. waxa uu saxeexay heshiiska, waxaana loo sharaxayaa wax kasta oo shaqadiisa ku saabsan, waana mid uu aad ugu faraxsan yahay. mustaqbalkiisa ayay durbo ula muuqataa inay wax badan iska bedeleen. maalmo kadibna wuxuu u bartay si fiican shaqada, haddana isaga ayaaba shaqadiisa maamulanaya. wuxuu soo dejiyaa alaabta ka soo degta dekada, wuxuuna raraa alaabta kale ee dekada laga dhoofinayo. waa shaqo uu si wanaagsan u bartay, qalab wanaagsan oo lagu shaqeeyana leh, dhib iyo culays badanna kalama kulmo. wuxuuna si wanaagsan ula qabsaday shaqadiisa maalinba maalinta ka dambaysay. durbana nolosha Jamaal waxay iska bedelay. isla maalintii xigtayba waxa uu tagay gabadh loo tilmaamay inay guryaha kirayso. wuxuuna u sheegay inuu dekada ka shaqeeyo, guri kiraana u baahan yahay. markiiba waxay ka kiraysay guri. hadda Jamaal waxa uu helay hoy iyo shaqo labadaba, wuxuuna degay magaalada Berbera, waxayna noloshiisu noqotay tu degan oo farxad leh. warka wanaagsan iyo nolosha diilada leh oo la kulmay waxa uu doonayaa inuu waalidiintii la qaybsado. maalintii xigtayba waxa uu qoray warqad, wuxuuna ku dirayaa boosta. waxa uu wargelinayaa aabihii iyo hooyadii sida xaaladiisu hadda ay tahay iyo sida uu durba u maareeyay noloshiisa, isagoo maalmo kooban joogay magaalada Berbera. hadda waxa uu helay shaqo iyo hoy, noloshiisa intii ugu muhiimsanayd. balse safarka iyo ujeedooyinka uu nolosha ka leeyahay Jamaal intaa kuma eka. waxa uu doonayaa hadafyo waaweyn, inuu mustaqbalka higsado, inuu shaqaysto, wax barto, sidoo kalena mustaqbalkiisa dambe dhiso. waa ujeedooyinka waaweyn ee uu nolosha ka leeyahay. waxa uu isweydiinayaa waxbarasho iyo shaqo midii uu hadda kusii jiro, balse waxa uu aqoonsaday inay labaduba noloshiisa muhiim u yihiin. waqti ka mida noloshiisa oo soo shaqaystaa, waqtiga kalena waxa uu aadaa waxbarasho. waxa uu isaga dhex baxay, iskana ilaashay dhalinyarada isaga da'diisa ah ee waqtiga ku lumiya gidaarada iyo ciyaaraha maalayacniga ah yaan mustaqbalkooda iyo noloshooda toona wax tarayn. muddooyin kooban kadibna waxa uu noqday wiil noloshiisa ku filan oo maareeyay. inkasta oo bilowgii hore noloshiisa Jamaal uu duruufo iyo dhibaato aan qorsoon lahayn ka soo maray, haddana waxa uu muuqdaa inuu middaa ka soo kabtay. waxaan sheekada tan ka baranaynaa in caqabad kastoo nolosha ka hor timaada aad xal iyo maara u heli karto haddii aad dadaalkeeda la timaado. dhisi kasta oo uusan nolosha magaalo waxba uga aqoon, si kasta oo ugu soo dhex dhacay magaalo weyn oo uusan ehel iyo asxaabtoon oo ku lahayn, hadda Jamaal waxa uu maareeyay noloshiisa. waxaana laga yaabaa in mustaqbalka meel halkan aad uga fog u gaadho. sheekooyinka dambe ayaynu ku ogaan karnaa guulaha uu mustaqbalka gaadho, balse tani waxay dhiirigelin u tahay qof kasta oo doonayo inuu ka gudbo caqabadaha noloshiisa ku hareeraysan. intaynu tan iyo toddobaadka dambe ku kulmayna sheekada tan ku xigta, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo. haddaad soo gaadhay dhammaadka sheekadan, welina aanad ka mid ahayn saaxiibada rukuntay dhallaan koriye ee mar hore sabskrayb-ka saaray, waxaan kaa codsanaynaa inaad hadda sidaas samayso. waa hal taabasho, waqti iyo maal midna kuguma joogto. waxaa laga yaabaa in dadaalka dhallaan koriyana ay kordhiso. aad ayaad u mahadsan tahay. intaynu tan iyo waqtiga soo socda ku kulmayna sheekada tan ku xigta, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo. waqtigu ha idin wacnaado.